waxaan salaamayaa dhammaan dhalinyarada waayeelka siyaasiyiinta martida kale ee inoo timid dhammaantiin waad salaamantihiin waxaan ku faraxsanahay caawa iyadoo roobabowa oo galabtoo dhan uu roobda'ayay in haddana dadka intaa leeg caawa barkulankii soo buuxiyey oo ay ku soo tala galeen inay ka qayb galaan munaasabadda ay caawa ku soo bandhigayaan saddexda urur ee horyaal horseed iyo hirad waa saddex urur oo horumar badan iyo shaqo badan ka qabtay bulshada iyo dalka Soomaaliland shacabka loo tumo saddexda urur sidaad ogtiinba muhiimadda loo furay barkulanku waxa weeyaan waa meesha xarun ay bulshadu leedahay oo aanu ku soo bandhigi doono horumarka badan mashaariicda badan waxqabadka badan ee ay xukuumaddu dalka ka fulisay 7 sanadoodayna soo dhaafay mashaariicda xukuumaddu ay dalka ka fulisay kumanaan kor bay u dhaafeen kumanaan qof ayaa la siiyey biyo nadiif ah oo ceelal loo qoday oo dhaamam loo qoday kumanaan ardaya ayaa dugsiyo loo dhisay oo tacliin tayo leh la siiyey boqolaal kiiloomitir oo wadooyinaa la dhisay horumar badan baa la sameeyey tababarro badan baa la qabtay halkan waxaa idiin iman doona dad idiin sharxi doona waxa waddanka laga qabtay horumarka la sameeyey iyo mashaariicda la fuliyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo musharaxa xisbiga kulmiye waxa uu ku ololeynayo codkiina ku rabaa waa wixii uu qabtay idamada waxaasaan qaban doonaa idamada saasaan rajaynayaa wuxuu idin leeyahay anigu 7 sanadood aad xilka ii dhiibateen waxaasaan qabtay waxaasaan rajaynayaa imika inta ololaha ka horeysa inta doorashada ka horeysa in maalin baleedii soo bandhigo wixii xukuumaddu qabatay horumarkii la gaaray ma aha oo kaliya Hargeysa ma aha oo kaliya gobol gaara waa wadanka koone ilaa koone hadday biyo tahay hadday laamiye tahay hadday horumar tahay hadday xafiisyo dawladeed oo la dhisay tahay hadday shaqaale dawladeed oo la qaatay tahay hadday ciidan la dhisay tahay horumarkoo dhan baa la soo bandhigi doonaa marka caawa waa inoo bilow saddexda daladood soo bandhigay shaqadoodii iyo horumarkoodii wixii inta ka dambeeyana habeenba halkan ayaa la idin soo bandhigi doonaa WhatsApp-ka iyo Facebook-ka iyo social media ayaa la idin kala socodsiin doonaa habeenba wixii la soo bandhigayo iyo cidda soo bandhigaysay siday tahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii halkan ka hadlay ee saddexda daladood ee hormood iyo hirad iyo horseed oo runtii soo bandhigay barnaamij wanaagsan waxaan aad ugu mahadnaqayaa aqoon-yahan Cabdiraxmaan Ubaxle oo runtii isaguna ah tiirarka waaweyn ee xisbiga kulmiye asaasay oo maanta halkan inoo yimid oo martiino ahaa ahna nin media ku jiro Ubaxle media ka hadla oo runtii halkan u yimid inuu idin la wadaago isaga laftiinu aad u mahadsantihiin 100% waad idin soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay maatakiina waxaan ka rajaynaynaa intan iyo ka badan baynaad ka soo qayb gali doontaan barnaamijyada halkan la idin soo bandhigayo haddii Ilaahay yiraahdo waana salaamantiin